السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابنا دما وادين سلام مeel kasta adduunka ka joogtiin waa anigoo ah Maxamed Ciida halkaad iga daawanaysidna Maxamed Ciida maanta waxa idin wadnaa barnaamij aad iyo aad u qurux badan barnaamijkaas oo ah musalsalka haboon qaabka loo duubay reaction ka bixin doona insha Allah waxa soo duubay walaalkeena Cabdalla Jamaal iskuulay ninkaas leejan waa halkaan ka salaamay saaxib meel kasta aad tagtid waan kula socdaa wuxuu soo duubay qaabka loo duubay filimka ama musalsalka haboon سأكتهن ومسلسل آدي أدو خروح بدن سيزون كي سلوات إنما عادي ما هو أنا لصعدا وحا رياكشن كبيحن دونا خاب كلو دوي كل إنكستو أصلا صوت دوي أنا جانو حاجة على استي إنها رياكشن كبيحيو صوته وحفي عن أو قروح بدن أركي خاب كلو دوي الجهد يقلق لي هدا حسين يسيت فيديو جان إلا أنا ما دنا لداو سبسكرايب نوصل هدي أدنو عصبتا جانالك لايك تنو نوصار كومنتيك نوصل بحي هذا لا اسكو دالينين first time and reaction aan bixiyo wax cusub aan sameeynayo idinkana hada ka heshiin igu dhiirigeliya fadlan let's go wow هلا صاركتين وانتروغا ولكن يوتيوب كيسو كسو غليي yes انبا عادي ما هن انتروغا ديارسي هذا فيديو بلاوني I think okay السلام عليكم صاحبي الاب سلامنا ميول بقى joogtan hadii aad nagala socoto Facebook iyo YouTube ka maanta waxaan doonaynaa inaan hal mar isla eegno filimka weyn ee Soomaalida qabsaday ee Haboon season 1kii waa dhamaaday inaad daawatin waan rajeynaya laakiin waxaan rajeynayaa season 2gana inaad isagana aad la socotaan si toosan waxa aan doonayaa inaad la wadaago sida loo duubay dadaalka iyo waqtiga iyo juhdiga lagu bixiyay qayb kamid ah filimka aad ma santahay waxa waaye wax loo baahnaa waaye in aan aragno aniga naftirkeyga marketing waa yani waa ka fikiray qaabka loo duubo iyo waxyaalahaas inaan arko sababtoo ah way u muuqataa wax waqti la geliyay oo waqti badan lagu bixiyay saan u jeedno hadaba waxa waaye qaab professional loo duubay midinka hor dhacay aan si fiirsano marka let's go waxyaabaha xiise geliyana waxa kamid ah subax hore salaada subax marka laga baxo waxa imanaya shakhsi isagu u gaara inuu dadka waco u garaaco familygooda oo dhan hadii uu qofkaas telefoonka qaban waayo hadii uu familyiga qabo waaw dhibaatada jirtaaba kaas amoogtaa Soomaalideena hadii la dhaho waqtiga isku balanno waxa waaye badan aan ku imaano sababtoo ah kulay hadaadan arkin waxa sameeynay channelkaas lagu magacaabo Garab Walaal official waxa soo geliyaa فيلمان short films iyo wixii la mid ah insha Allah hadda filimka ugu horeeyay aan soo gelinay waxay ahayd magaceeda Godob Jacayl yes Godob Jacayl trailerkeedu uu ku jiraa wuxuu ku jiraa filimka oo short filmkiisa oo full ah filimkaas markaa duubay caqabadka badan aan la kulmay waxay ahayd in aan maxal lahaa dadkii aan bilamiyo ay mar ay hurdaan ina soo kicisid wacdid way ku waxa saareediyo caqabadahaas badana way qabsataa dadka filmaanta duubo aniga duubo filimkaas anigaan edit gareeyay waxaan igu caawiyay walaalkayga Daawud asagan director ka ahaa film aad iyo aad u qurux badan waaye oo short film ah hadaadan soo daawanin linkii hoos soo dhigaa soo daawo nala socdo marka let's go waxyaabo kale iyagu xiise geliyo waxa kamid ah shakhsi isagu u gaaraba shaaho kaliya inuu keeno waxa kale oo kamid ah qof kale isaguna u diyaar inuu cuntada iyo qadooyin sameeyo muhiim waa sababta energy meesha laga qaadan lahaa dhan cuntada waa yes waxa waaye waqti badan aad geliseen Astaan TV aad ugu mahadsantihiin wax qurux badan saan ugu soo gudbiseen hawl badan aad geliseen sababtoo ah qofku cuntada ku soo diyaarinayo adigoo actor ama adigoo cameraman ah energy u baahan tahay wax ku duubtid ama wax aad ku jilin gareysid yes waxa kale oo kamid ah qof isagu u gaaray inuu lensisyada oo kaliya uu keeno waxa kale siiha u dhahay lensiska xataa dada u gaaray lensiska soo diyaariyaan lensiska nadiifiyaan dada cuntada keena dada shaahi keena dad soo wacay waxa soo dhan waxa isku dabariday dad aad iyo aad soo diyaariyo waxa sababtoo hal qof waxas isku qaban karo ahaanta hadii runta laga hadlo sababtoo wax oo professional ay sameeyeen keep going aad leeyahay inaanu kamarad aan dabku dhicin ama battery aan la waayin waxa la soo qaatay mishiinkii dabka ayaa la keenay bartaayada gaadhin oo taagan ayaa laga dhigaya inuu soconayo waxa kale anigu aan aad حواي كل ذاتك يخان فيلم خابك لو سمع فهمي كرو
waxaa mararka qaarkiis waxaa loo baahanaa green screenkaas wuxuu kaa saacidaa marka qofkaas meel uu joogo inaa geysid so baawarada qaarna waxa waaye markay soconayaan dadka qaar xataa darawal aan ahayn oo qofka actorka hadduu darawal qaabka loo wado baawar uusan ka seen xataa qaabkan haddaa u samaysid waa samayn kartaa yani maraga oo cagaaran ama mara buluuga isticmaali kartaa kadib meesha aragtida geysan kartaa qofka caadi maaha so waxaan ka raba ma lahan kulli hadda allahana madaxiga qabsanayo qaabka fiiri halaha khalab meesha taalo inaba caadi maaha kaamirada taalo qof kale wax kasii daawanayo maxaa lahaa kii monitor oo qofka uu ka daawanayo directorkii waxyaalahaas so wax badan yeah keep going uga sii helay qof walba shaqadiisa siduu uga soo baxayo hadday noqoto roolka directingka actorka kameramaanada kulligood haddii aad daawan jirtay filmaan kale oo Turkiya ama Hindiya filimkan waa filimkii ugu horreeyay ee musalsala ee loo sameeyay qaab international ah iyadoo welibana ay sameeyeen dad Soomaaliya waxaana qoray qof Soomaaliya waxaana mataliyay qof Soomaaliya yes waxa lagu faano waaye in wadankaaga qof ajaanib ku duubin waxaaga qof ajaanib ku edit gareenin qof ajaanib director uusan kaaga naqanin adiga wax kasto aad samaysatid so wax lagu faano haddana saa u jeedinba caalamka la sii qabsanoona kulay waxa ma jiri jiray musalsal la soo saaro filmaan la soo saaro waqtigii hore riwaayado iyo waxyaalahaas la soo saari jiray laakiin saanan professional mu ahayn kulay hadda caalamka la soconaa waxa waaye waa inaas ku faano anaga dhexdeena inaas ka qabsano inaas ku mashquulno wax loo baahan yahay ma baahan zaatin waxaana daawanaya waa qof Soomaaliya waa idin salaamay dhawaantiina magacaygu waa Ashwaaq Siraaji هو أتريشة أو فيلينك هابون أشواق على ده أيضاً so yes وأجي واحد كستبا details أديك وصو قد بيمشى أنا كان reaction أنا كبيحينه يا إذن كان مركا أنا لا دعوة إلا دمت هك عاجزنا so وحيا على بدنا كفائدة دونتين خاب قلو ضوئيو وحيا لها so yes يعني كفائدة استمركب نلا صعدة waxaan idin dhihi lahaa xitaa season 1ka wax walba oo ka maqnaa season 2 ku jiraan iyo wax kale oo dheeri ah yes wax sax ay sheegtay sababtoo ah season 1ka badana dadka qaar ama markaa fiirsid actorka qaabku yani u jilin gareenayo ama haday noqoto codka waxyaalahaas ama lightingka waxyaalaha ka dhidhinaadha masalan inta xawaaye way ka fiicnaan doontaa ama way ka fiican tahay waa fiirsan zaatin kulay videogan inta oo la soo gelinaa la duubay asagan mar dhow loo soo geliyay yes marka xawaaye inaba caadi ma season 2 waa fiirsaday perfect marka meelaha ugu muhiimsan video geena insha Allah oo aan ka helay so idinkan ila daawada soo jeedin hada labadan wax arkosiin monitor allaha xawaaye hada kan wuxuu ka fiirsanayaa directorka meesha fadhiyo markasta waxa qofka directorka inuu la socdo action kasta uu dhacayo asagana ka saxaysan sameeyay sameynta ka soo gali camera angle-kiisa inkastoo adiga xirfada u leedahay asagana directorka wuxuu wataa qaabku uu dhici lahaa filimka iyo actionku uu dhici lahaa iyo angles-ku ka imaan lahaa asaga kaasay sixi kara sababtoo ah asaga meel oo wuxuu ku jiraa ama dilata deeno hot ama qolada deeno hoto hadii khaladaadka galus asaga ka sixi karo so yes wuu la socdaa marka kharash badan oo ku baxay kaamirooyin badan taalo خلب بدنا تعالوا شغالين بدنا كشخينه so أنا كان محور الله هاس وقت اللي سوى جريه أنا كان مركن لا في سنة إنه just وحيدس خلط من كأرجنه حده هنا أوف كان محورين عنا كخلدنات so yes وخوف بين آدم وحكي سوى قلدي كلا وسرعة مركب واو دلنا على بطا وعلى الصعدة خفا فيرينه خف كلا يعني والس عابينه يا سأوجي دين بقى هل خوف شغله موضوع so teamwork إن أنا خطيت مهم وها رول كده هو first AC cameraman سو معناها هو على شرح كرا عاوية كود cameraman أيه مركا سفي عنايان مهم هو cameraman كإنه عاوية ولا هذا هو محاكو تلمامة هذا أنا جاهان لكن أنا أهم مركل تلمامة قبل ككربك أنت جوجو كلية كاميرمان كيس كده صوته سومالي كلامه جو أو كاميرا أو ساسو حدوه so محندها خفي عاوي مالها نسكده يعني لكن واسمه تيا صوته هذا أنا وحكو دوا كاميرا معها كلي أدا فهمي كرسيت موبايل حكو دوا
so yes qofkii ku dhaho mobile wax ma lagu duubi karo hadda waxa iga fiirsanaysa mobile aan ku duubaya waxyaalaha youtube-kayga soo geliyay mobile waaye so yes hadda youtube bilaabaysid first ka bilaab mobile-kaaga waxa aad hayso ku bilow just wax qurux badan quality leh soo gudbe so yes how I store how I iskala kicinaa shaha soo qatay okay store ome of course lama dhaqaajin karo sababtoo ah waa ninka energy-ga dhan dadka siin lahaa cunta siin lahaa waaye so waxa waa muhiim waaye aniga hadda kasta waa oomay inta hadda wax reaction bixinay shaaha soo qaata u jeedin so yes maxaa fili kartaa marka filin oo la duuwayo 1 saac 2 saac 3 saac iska dhaxataa maalin dhan la duuwayo subax ilaa haween oo haddana halkii mar wax la duuwayo halka siin la duuwayo inuu soo socdo tooraha ya tirishada inay soo socdaan oo lagu celcelinayo 3 jeer oo kale oo khaldamayso maxaa fili kartaa marka qof dad qaar waxay leeyihiin furol marka furol arkaa farxayaan marka la arko wala farxa of course waxa waaye hadda baahan tahay hadda aragtid cunta soo socoto waxa waaye la kala leexdaa dheer meesha hoosha ku jirta taa ku soo baxee waxa waa loo babinaya sababtoo Soomaali jiro wax yar waxa waaye kuleel iska jirto حتى دبك جرا وحياتها متقانا adoo filin jilaayo kuleel ku qaban waa dhidide energy aka buuxo waa hadloosa waxa laakiin markii la joogo wadamada Yurub oo kale asaaba qabow iska ah marka adaab jacket gashanayo hatta mararka qaar marka banaanka wax ku duubeysid hawada soo galayso daweesha socoto daas waxa noise reduction ka banaanka soo socdo inaa kan sajid hatta mararka qaarkiisa si kasto aad u gelisid computerka aad u samaysid dhibay kugu noqonay marka waxa ina haysataa microphone oo inaba caadi ahayn oo maxaa lahaa banaanka noisekiisa dhanka xiraayo hadii baabuurka noqoto dhibta ugu badan ee haysato marka la joogo Soomaaliya ama Muqdisho meesha noqotaba oo fin lagu duuwayo hoonka waa baabuurka so hoonkaas la hirina markasta dhii waxa waa caadi maaha yani filinka dhan uu ka khasa marka yes insha Allah waxa waa inuu xalis ma rajayna asagana لايتك دن oo musalka haboon nik qaabilsan waaniga lighting-ka muhiim waa guys waxa waaye light-na duu maqan yahay filinka wuxuu noqonaa hadda aniga ay fiirsanaysiin hadii lighting uusan jiri lahayn sifir u noqon mesela light-ka dimina hada say arkosiin mujida so muhiim waa light-ka kulay background light-ka oo jeedin blue-ga so yes saddex light isticmaalo mid oo laptop ku dhacaa mid anigu dhacaa midna background ku dhacaa so yes yeah marka waa muhiim waa light-ka ina saxatid hadii light isan jirin asaaba sheegay zaatan hadii light isan jirin film ma jiro zaatan quality-ga ka dhumaayo wajiga shucaa u gala iyo wax badan iska jirayso oo ka caawinaya meel weyn buu ka caawinaya xoog dhan oo waxa waaye musalka dhan waa lighting marka light hadii uu jirin camera wax ay shaqeynaysa ma leh haddaba daawade ma kamid tahay adigu dadka ku xidhan filinkan haboon haddii aad kamid tahay ay joogtaadu haa tahay qaybtee ayaa kugu xiisa badnayd comment ka mid sorry guys waxa waaye mobile kale oo iga buuxsamay oo iga damay so hadda mobilkii kala isticmaalaya so meesha halka qof laga iloobo waxay tahay qof laga iloobay qofkaas oo ah edit-ka qofka qaabilsan edit-ka muhiim waaye sababtoo ah qofka qaabilsan in uu sound effect geliyo muusigaas quruxda badan iyo emotion-kaas iyo dagaalka markay noqoto iyo xanuun markay noqoto qofku waxaas dhan gelinayo waa qofka edit gareynayo so meeshan videogan waa laga ciilay qofkaas qofku noqdaba insha Allah ina soo hawtiin arjana mar kale qofkaas sababtoo waqti badan oo geliyay marka ana ku dareemi kar saaxiib waxa waaye inaba caadi ma waqti badan la geliyo waaye loo fikiro aadi u dhib badan tahay marka waxa waaye team working waaye waxaan dad way soo duuwayaan dad way direct gareynayaan dad way qorayaan dadna way light gareynayaan kadib ninka uu soo dambeeyo waxaas dhan soo qawana isku soo aruurina compression ku sameeynayo waa editing-ka qofka qaabilsan marka waxaan kula shaqo culus ah saaxiib waxaan halkan aad ugu mahadcelinayaa Cabdul Jamaal walaalkeena oo noo soo duubay video-gan quruxda badan aan aragnay qaabka loo duubay filinka haboon ama musalsalka haboon so waxaan kula saaxiib adigana keep going waxaan kula keep going horu soco
so insha Allah videogan halahan oo kusoo koobaya haddii reaction kan aad ka hesheen reaction badan aad noo haysid oo ku saabsan editka iyo wax ku saabsan noo soo dir insha Allah kusoo bixin doonaa so haddii aan ku fiicnaan reaction kana igu soo qor waa iska joojin doonaa marka hada wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh